بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود بيتنا بيت سعيد نحن فيه كالورود كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد كل يوم فيه ننمو وأمانينا تزيد وأبي دوما وأمي منبع الحب الأكيد كل فرد منهما حقا له قلب ودود جعل الفرحة بين الكل في البيت تسود جعل الرحمة تغشانا كما الظل المديد حبب البذل إلينا فترى الكل يجود فترى الكل يجود نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد نبتغي وجه الإله الحق في بذل الجهود نبتغي وجه الإله الحق في بذل الجهود نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد نبذل الخيرات إن البذل يأتي بالمزيد نبتغي وجه الإله الحق في بذل الجهود نبتغي وجه الإله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ساكي oo bishu tahay 6 bishii 12aad waxaanu halkan ku soo booqanay Dr. Jaamac Abdullah Suleyman ahna agaasimaha caafimaadka ee degmada Galdogob ahna madaxa mashruuca xakamaynta xakada TB-da oo laga furay degmada Galdogob marka sidoo nooga siiyo xogaa faahfaahin xaruntan iyo goortii la asaasay iyo sida ay u shaqeyso iyo dadka hadda ku xiran oo cudurkan qaaxada laga helay iyo dawada sida loo siiyo intaba insha Allah taala waxaan ku soo dhaweynaynaa Dr. Jaamac Abdullah Suleyman oo aad u taqaanaan cala weyne falyatafadal Dr. بسم الله الرحمن الرحيم حرمتان أما عافيتك جود هدان متقناي warbixin kooban ka bixiyo magaalada tan waxaan joogay muddo badan baan joogay intii burburka ka dambeysay oo dhakhtar baan ka ahaa magaalada degmada Galdogob marka hadii goor ma ay helinin baahida caafimaad degmadu u baahan tahay markastaba ha ahaatee markasta waxay ku ahay mid aan mataqaanaa helinin sida mataqaanaa deegaanka Puntland ay ka tirsan tahay oo maaragtay oo facility-ga uu rabo ama baahida uu rabo uu u daboolay bay ayaduna ayna u daboolahayn intaas waxa weeyaan waa caafimaadka guud baahidiisa jirta oo tan lamida TB-da lamidka ah oo waxa kale oo caafimaadka ah sidaas ay ahaayeen TB-du waxay tahay mid ayadu mataqaanaayay cudurrada ka mid dilaaga ah ay ka mid tahay siyaabaha looga hortagana waxa ugu horeeya talaalada iyo waxaas ugu horeeya in ilmaha laga talaalo markaana dadku burbur iyo dhibaato ku jireen sida badan dadku talaal saasa ma ay helaynin oo talaalo mataqaanaa saasa waxa laga yaabaa sidii loo rabay inaan loo helinin deegaamadanuna waxay ka mid yihiin deegaamada mataqaanaa TB-du ay aad ugu badan tahay ay ka mid tahay deegaanadan haddaan ku noolahay Galdogob iyo gaarkiisa iyo inta xuduudda la haysto dhan waxay ka mid yihiin deegaamada ay TB-du ku badan tahay marka xaruntan TB-da oo ka mid ah xarumo badan oo ilaa 50 iyo 2 xarumood oo ka jira Soomaaliya oo dhan ay waxay ka tahay mid ka mid ah weeyaan taa oo loogu talagalay in lagu xakameeyo TB-da in lagu xakameeyo oo mataqaanaa ee lagu la dagaalamo TB-daas oo dhibaato badan la timid oo awla in la hajirin dadkii oo markay daawo iyo xarumo TB waayeen qof walba meel intuu iska tagay oo iska cunay daawadii TB-da
markaana ay reebtay raadad aan mataqaanaa qabasho dambe wax qabasho dambe lahayn oo waxyaalaha la yiraahdo resistance ay u samaysay qofkii resistance qabana oo daawada resistance u noqdana qofkii ku talaalana waa resistance weey oo macnaha daawada wax tarimayso kii uu ku talaalaaba daawada wax tarimayso bulshadeenu baa waxa ku fideen sida markii adduunyadu aragto shirar badan aan ka qabanay oo adduunyadu ay ka gashay waxa la gaaray Soomaaliya oo la xakameeyo oo xarumaha kala la sameeyo xaruntan markaa waxa la dhisay bishii Maarso baa la dhisay 2009 Maarso la dhisay waxa dhistay hay'ad la yiraahdo waxaan dhistay hay'ad la yiraahdo Marlin baa furtay oo markii hore dhistay meesha ayaduna implementer waa hay'ad kale oo Mareykan iyo Ingiriiska meelaha kala jooga ee fuliyaal u tahay waxa laakiin dhisay waa Marlin hay'ad la yiraahdo xarunteeduna ay ku taal Garoowe waxa la furay bishii Maarso la furay baa la dhisay bishii Maarso baa la furay baa la dhisay Maarso la dhisay waxa la furay June baa la furay bishii June waxa la keenay daawooyinkii TB baa la keenay meeshaan oo la siiyo bukaanka ilaa hadda waa ay furan tahay ilaa June ilaa hadda oo bishii Luutanaad lagu jiro waxaanu daawo siinaa 42 qof baanu daawo siinaa 42 qof baanu daawada siinaa 42 ka qof aan daawada siino waxa la yimaadaa 6 aroornimo ilaa 5 aroornimo baa dadka jireen u yimaadaan shaqaaluhuna shaqada ay bilaabaan ilaa 5 bilowna aroornimo subaxda markii la tukado baanu bilownaa subaxda markii la tukado baanu bilownaa daawo bixinta iyo fiistada iyo shaybaarka markaas aanu isku bilownaa dadka daawada aanu siinayno meesha daawada laga bixiyo qofka horteedu istaagaya ninka daawada siiba eegaya wuxuu leeyahay liqbu leeyahay waa liqaysa ilaa qofku ku hubsado inuu liqay hatta waxa laga yaabaa qof kale uu ku foorsan oo siinin oo qofka kale ku xiga inuu daawada u dhiibin ilaa uu ogaado kaas inuu daawada liqay dastuurkeeda waxa ku dhisan yahay sida ay loo galo oo mataqaanay la siiyo daawada la siiyo adoo arkaya ina daawada la siiso baa dastuurkeeda ku dhisan yahay mid kale aroorta waxa keenaya in la soo kalo daawada waxa la rabaa intaada quraacan jirka inay ku jirto ilaa 2 saac iyo in ka badan jirka ku jirto adaa ma cunin inay jirka jirta la rabaa marka qofkii hadii hadda oo kale 1 saac hadda waa 1 saac oo mataqaanay meel bay maraysaa saacadu oo subaxnimo anaguna hadda 2 saac ka hor baan daawada siin qof marka chance wuxuu helayaa marka 5 aroornimo siiso chance wuxuu helayaa inuu 2 saac quraacdo ayuu daawada ku tagtay ama 1 saac bar iska quraacdo ba qofku chance wuxuu helayaa hadii aan saal yeelin ee aan daawada siino 1 saac ama 2 saac ama 3 saac siino hadii goormu quraacaya ma la saac quraacaya qofkii baahi baa dilaysa qofka cudurka laga daaweynayana gaajo loogu talagalin waxa loogu talagalay cunno kaafida inuu helo oo mataqaanay oo meeshii cunada sidii isaga kastaba ha ahaatee wixii loogu talagalay oo cunada qadada iyo quraacda iyo xilliyadii laga rabay inuu cuno baa loogu talagalay laakiin hadii laba iska fuusho oo quraacda iska meel noqdaan waxa muuqanaysa in gaajo badan ay mataqaanay ay ku soo baxday meeshaanito daawacinteeduna waa saas shaqada sidaan u soo galaana waa saas baahiyaal hadaan u baahanahay hadda shaqada mataqaanay ay u baahan tahay inuu ku socoto waa ay jiraan sida mataqaanay raajatada oo kale aad iyo aad muhiim noogu ah raajatada dadkii waxa jira dad cudurkii qaba ayaga cudurkii qaba hadana cadufti aan laga helin oo dadka maaha inaad cadufti ka wada helayso waxa dhacda qof cudurkii qaba in cadufti laga waayo baa dhacaysa qofkii waa jiray systemkii TB-da loo hayaa waad ku arkaysaa calaamadii TB-da qof waad arkaysaa mataqaanaa caatada waad arkaysaa qandha oo saacada gaar ah special ah qabata TB-da oo sida maarta galabtii iyo aroortii qandhadii qabanaysa qofka ku arkaysaa halkada malaad ku arkaysaa
qufac dheeriya oo ma taqaanaa uu qufacayo 2 bilood 3 bilood qufacayaad ku arkaysaa qofkii caataa oo dhamaad arkaysaa isla markaas laga heli maayo canuus wax laga waaya qofka wuxuu naga baahdaa inaan raaji saarno saan ma taqaanaa dabka ugu sameeyay xanuunkiisa balse mudkiisa siduu yahay si uu dhaqan yahay raajada lagu arko dhiigaga oo ma taqaanaa aan u dirno oo dhiigaga u dirno ma taqaanaa ayadana TB-da laga baaro u dirno kuwaana baaristoodii ma haysano raajadana waa dirnaa dhiigagana waa dirnaa labada waxay lagu hayaan mid kale cudurka HIV oo kale dadka waxa laga yaabaa inuu isaga jira laga yaabaa hadda goorna wuxuu kaashadaa cuduradaas oo kaashada ma kaashada asaga ku xirmaba oo TB balkan HIV waa problem iska jira marka waxyaalaha uu qofku u dhinto oo uu koskareeyo yaaba waxa kamid ah TB cudurada ugu badan ku jirta malaria iyo TB iyo shubanka iyo waxa soo dhan waxyaalaha ma taqaanaa HIV wato waxa laga yaabaa dad badan aan u qabno inay leeyihiin dad badan aan u qabno inay leeyihiin maaragtay inay leeyihiin dad badan aan u qabno TB kaliya inay qabaan waxa laga yaabaa inay qabaan HIV hataa inay qabaan yaa dhici karta waxa ku baari lahaa sagara ma haysano waxyaalahaasi waxyaalo kale oo badan laakiin waxa hadda ugu daran muhiimada raajatadaas shaybaarka ma taqaanaa reagentigi lagu baari lahaa shaybaarka ama HIV-ga ha ahaato ama face-ka ha ahaato ama ma taqaanaa diabalka la formale tirsiyaal ha ahaato wixii TB-dan ku ogaan lahayn oo dhan oo ka madax banaan candhuufta maanu hayno inkastoo hay'addu ayadoo ay ku focal garaysan tahay ama ku address garaysan tahay kaliya candhuufta in la qaado haddana waxaanu leenahay ma taqaanaayay oo hay'addu oo gashay raajatada iyo go'aanka dhakhtarka in wax badan lagu socodsiiyo aan ilooba aynan ahayn candhuuf kaliya qofkaad ka heshaan daaweeya laakiin baaritaan u raaciya oo ma taqaanaa sida caruurta oo kale caruurta yar candhuuf ku tufmaya xaakana tufmaya TB-na dadka ay u leeyihiin waa qaadaya marka waxyaalaha caruurta kale la kaashan lahaa oo ma taqaanaa aan hadda soo sheegay sida dhiiggaas raajatada shaybaarka waxa soo dhan waxa la rabaa ma taqaanaa waxyaalaha aan u baahanahay haddana aanan haysan laakiin ayagana rajac ka qabnaa hay'addu inay ma taqaanaa waa u sheegnay inay hay'addu ma taqaanaa ay waxaas ay ma taqaanaa tiitaalkeeda ay ku dadaasho ayaguna hadda intaanu hawlay qabteen oo hadda wax isleeyihiin ma taqaanaa jaanisyo badan waa runo jaanisyo badan baa hay'addu qabatay waxa ka shaqeysa ilaa ma taqaanaa 9 qof baa ka shaqeysa meesha oo shaqaale ka ayaga shaqaaleeyay dadka ayaga shaqaaleeyay waxaana iska hay'adda dhistay daawada ayaga bixiya qalabkan hadda noo yaala ayaga keenay hay'addu waqti dhowna waa ahay oo daba garan kartaa 6 bilood waxaasayto waxaan u baahanahay qalabkii xafiisyada oo kale sida kombiyuutarada oo kale iyo mataqaanaa hal kombiyuutar ma haysano aan wax ku garaacno oo mataqaanaa mar haddii aad xarun joogto waxa kale oo naga fog xarumihii laga maamulhayay haddana kombiyuutarada waxaas haysan hadee waxaan wax ugu dirno oo ugu gudbino waan ku wada mataqaanaa ma haysano magaaladuna kuma ay badno ma ay laha mataqaanaa meelo badan oo kombiyuutar ma laha asaguna waxaas ku mid yahay hay'adda markaan warsameynaa hadii hay'adda wax garay sheegto waxa degdeginina waa la leedin maqan yahay haddana qarash badan baa leedin geliyay oo hadda idinka dhamaaday daawada dhawaanta waa kuwa keenay qalabkan dhawaan bay keeneen abduwi baa laga keenay carabta iyo ka soo qaaday dhawaan baa la keenay qaas malkiina haddana way idin socon doontaa waxaad ka mid tihiin xarumaha kale oo Puntland oo badan baad ka mid tihiin ayaga laftooda hadda intaan oo kale in badan baan haysan ee wax xunay u taagtay oo marka xarumahooda la sameeyay waan aragnay aniga iyo bila iyo kuwa caafimaadka ku yaala caasimada yaani kuwaana kale uma yaalin ayaga armajooyinka kale uma yaalin kuwa yara qolfay waxa yaala shaybaarkooda waxa kuwaana kale uma yaalin waa ma garanaysa inaan xageer jirinin oo mataqaana aad iyo aad ay dalkan ugu dadaashay waxa xagaraayna sameeynin laakiin hal baan ku walidanaa dadku waa ka fognay jidka dheer
iyo xarumaha baanu ka durugsannahay demi baan waayahay shaqaalaha waa idin hintis baan idin siiyo waxaan waa 9 baan idin yidhi laba waa waardiyaha weeyaan waa labada nin oo waardiyeysa halla waa nadiifiso saddexaas waa shaqaalaha hoose laba waxa weeyaan waa afar bishtijaal weeyaan daaw bixiyaal weeyaan labana shaybaaristayaal weeyaan labana waxa weeyaan waa dhakhtarka iyo ku-xigeenkiisa weeyaan oo waaniyo gabadhii aad fadhida weeyaan shaqaaluhu waa 9 kaas weeyaan saasayna kala yihiin waa marka qalabkana waa arki doontaan kuraasta iyo miisaska iyo waxa noo keeneen ilaa kuwa aad ku fadhidaan waxaan haysanaa ilaa 20 kursi oo kuwa aad ku fadhidaan baanu haysanaa iyo 5 noocan oo kuwan fadhiga oo dheer baanu mataqaanaa noo yaalla meeshaan kaliya waxaa jira meelaha xarumaha oo laga hago baa naga fog for example garow oo kale baa nagu sokaysa gaalkacyo waxa hataa oo saas oo xariira laba hayood baa kalana hay'adda garxay TV iyo hay'adda galduug waa laba hayood annaga taayid waxay ka jirtaa garow iyo qardho iyo galduug saddexaas ka jirtaa hay'adaas meelaha kale hay'adda kale ka jira oo annaga maartay aan lahayn laakiin qoraalaan haysanaa waxa weeye Soomaaliya inta ay tahay qofka aad u bedesho warqadahan aan haysanaa oo maartay oo bedelkiisa loogu talagalay baa loogu talagalay haysanaa marka kuwa loogu talagalay meel alla meesha u bedesho soo la tagaa loo bilaabaya daawada waxaa loo jeedo kuwa boorama ka yimid kuwa baydhabo ka yimid annaga waxaan u dirnay baydhabo u bedelay boorama u bedelay boosaaso u bedelay meel alla meesha loo bedelo xarumaha xakamaynta TB meel alla meesha ka furan tahay oo uu sheegto ugu dhow baa u bedelaysa markuu bedel sheegto waradiisa iyo waxiisa siinaysa inta uu safarka yahay baad siinaysa daawada safarka inta ku deeqda toban bara ku tagaya tobankii bara daawadiisa siinaysa xaruntii baa hadii telefoon la helo laga hormarinaya shakhsiga aynkaas oo raada taasoo la tagaya markuu la tago acceptable waa la qabilayaa taana waxaanu leenahay waxa xakamaynta TB ka mid tahay inaan qofna seeray waxba oo seeray daawada meesha laga bixiyo oo xarunka loogu talagalay TB-da xakamayntiisa daawadu waa lacag la'aan wax lacag oo laga qaado haba yaraatee ma jirto fiisatada qofka jiran oo dhakhtarku marinayo waa lacag la'aan shaybaarka technicianka shaybaarsiga marinayo waa lacag la'aan wax oo TB-daas la xiriira oo meeshaas yaala waa lacag la'aan wax lacag oo shakhsiga lagu xiro ama laga qaado haba yaraatee ma jirto waa free from charge weeye wax ilaahay abuurtay oo qarash ma jiraan oo qofka la weydiiyo haba yaraatee misas daawadu waxay noo saaran tahay misaska arkaysa noo saaran tahay waxa naga dhiman shalfarkii baa naga dhiman daawada la saari lahaa qoraalkiisa waanu gudbinay ayaa hore oo soo gudbiyana la yiri guddiga caafimaadka iyo aniga iyo waxyaagaas oo isla kaashanay soo gudbiyana la yiri waana gudbinay ilaa haddana weli wax nama soo gaarinin oo lama hayo saa daraadeed waxa aragtaan daawadii oo noo saaran miisaskii lagu shaqeyn lahaa daawadii oo noo saaran baad aragtaan oo miisaska noo saaran yaa idin muuqata daawadii oo miisaska noo saaran way xabiiba la yiraahdaa waa daawada gabdhaha bixiyo weeyaan oo caafimaadka daawada ugu qoran weeyaan oo qalabaysan oo ragii technicianka ay dhex fadhiyaan ninka halka taagan oo aad u buuran technicianki weeye oo baal kala waday oo ku soo taxawusay shaybaaristaha meesha yaala qalabkiisa waarkiisaan qalab caadi ma aha waa qalab casri weeye ma ay kamid aha qalbiyada hadda ardiga yaala kamid ma aha oo dadku haystaan waa qalab casri yaala ama daawo ha ahaato ama shaybaar ha ahaato mataqaanaa inta shaybaaristaha meesha jooga ilaa 20 sano shaybaarista ka aha deegaamada markii dambana tababar ayuu qaatay bile cali nakus baa la yiraahdaa barka shaybaaristaha waa kuwa taagan qalabka idin muuqda shaybaaristaha waad aragtaan dhalooyinkii wixii safran oo meesha ay ku yaaliin qalabka oo ninka ka dambeeya xagga uga jeeso miisaanka lagu miisaano shayaabka lagu miisaano ay garat
baad suu samaysay suu bisay alaabta taala waxa yaala waa arkaysan waxa iskale tiibadaas ilaa hadda chance waxaan u helay aan lufta kaliya ku baar oo wax kale kuma aan baar aan lufta kaliya ku baar sababtu waxa weeye qalabkii kale wax lagu baari lahaa lama soo gaarin waxaan soo gaarin aan lufta wax lagu baari nama ay soo gaarin qalabkii lagu baari lahaa shayada kale oo caafimaadka aan u baahnayn qalabkii lagu baari lahaa wali nama soo gaarin waa sugeynaa waa kaas halkan waa qolkii shaybaarka weeye shaybaarka markuu qofka bukaha yimaado dhakhtarka ayuu u tagaa marka ugu horeysa dhakhtarka markuu u tago ka bacdi dhakhtarku wuxuu soo siiyaa warqadan uu soo siiyaa warqadan qofka neerska iyo dhakhtarka joogaa noo keena ka bacdina warqadan aan ka qabanaa candhuufta ayaan waxaan siinaa waxaan siinaa caagan baan siinaa qofka markaan caagan siinaa candhuufta koowaad halkaanu ku tufaa daaqadaas kasoo dhiibaa daaqadaasu tagaa halkaas kusoo tufaa candhuufta koowaad numberkiisa waxaa lagu qoraa iyo candhuufta koowaad baa lagu qoraa ka bacdina waxaan siinaa caag labaad baan siinaa caagaa labaad gurigu kusoo tufaa markuu noo yimaado maalin labaadka haddana mid saddexaad baan siinaa oo halkan ku tufo saddexdaa candhuufood ayaan saas uga qaadnaa ka bacdina baaritaanka ayaa lagu sameeyaa markii baaritaanka lagu sameeyo registerkan baa wixii positive iyo negative lagu qoraa ka bacdina waxaa lagu qoraa warqadii markii hore dhakhtarku u soo qoray baa la siiyaa resultigiisi baa lagu qoraa hadduu positive yahay iyo hadduu negative yahay sidaasaa dhakhtarka loogu ceshaa islaydyada aan candhuufta ku baarnay lama tuuro waa markhaati weeye wixii negative ah waxay leeyihiin positive box negative box kan bay leeyihiin waa negative box oo TB Goldogob TB center ah halkaasay leeyihiin wixii positive waxay leeyihiin positive box oo ah positive box kan leeyihiin oo asna Goldogob TB center waa box kaas oo positive box ah bay leeyihiin hadhowto markay buuxsamaan hay-adda ayaa la tegaysa way qaadanayaan qof kasta oo jiran islaydyada saddexda islayd uu leeyahay halkaasay ku jiraan hadday negative yihiin negative-kay ku jiraan hadday positive yihiin positive-kay ku jiraan warqadiina waxaan dib ugu celinaa dhakhtarkii qofkana waxaan ka qaadnaa 3 maalmood candhuufta qaybta waa ku kaleerinaa oo halkaa kalarkii waaye qaybkan waa microscope-kii waa baaritaankii waa ku baarnaa reagentigi waa yaala halkan dawadii baa taabaya marka shaqadiyada wataas waxay noo keenaan dawada hay-addu 3 bilood mar sidaasaan ku shaqeynaa wixii go-aan ah oo dawo qorida hadhowta dhakhtarka ayaa iskala saas ayaa qofka nooga baxaana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله هذا waxaan joognaa xarun kamid ah xarumihii caafimaadka ee degmada Galdogob waxaan hadda sawirka hadda arkaysaan aan rabnaa la kulano insha Allah taala xarunta MCH-ka ay gacanta ku hayso bisha cas waxaan rabnaa insha Allah taala inaan wareysi yar la yeelano madaxa MCH-ka ee xarunta bisha cas حوا أحمد علمي أما سويت أنا بحوا حري مركا بصدق وحوا بسم الله الرحمن الرحيم مقعد أنا وحدي هذا حوا أحمد علم ورفاء وحناكم مقعد حوا حري MCH كان وحافري بشعس وحنا لفري لبض كون يتضبط بش التمنادي أكتوبر وأنا لقوا قوليست الحمد لله رب العالمين وحي ككوبين يقول لك السنة هذا إنسدونه تضبط قول كفرمشيها qolka koljiilka qolka OPD nurseska oo dadka waaweyn lagu qaabilo qolka hadda aan dhex fadhino MCH-kii ah MCH-ku wuxuu ka kooban yahay caruurta yararka ahayd oo under 5 ka ahayd mothers hooyadii oo u kala baxaysa hooyada uur kale iyo hooyada dhashayda ah labadaas saddexda qaybood iyo caruurta nutrition-ka ah MCH-kan waxa kale ku sixay qofka dhalmada oo dadku ay ku dhahween ku dhalaan
waxa ku xiga ID oo talaaladii ah iyo qolka waardiyo saxdo iyo 3 masquulood way MCH kana ka koobayaan waxay community ku darsadeen oo shacabka reer Galdood ku darsadeen qolka farmashiyaha ah iyo qolka koljiilka ah waxa ku daray community-ga waxa noo dhisay hay'adda bisha cas sidaad u maqasheen waxay bishii ama aanu kol qaraarayna ama report garayna dad gaaraya 1900 ama 2100 ama 2900 hadba wixii markaa bukaan oo meeshii maad ay ku xiran tahay talaaladii baan fulinaa biskudka nafaqada darrada ah oo ilmihi nutrition ka bixinaa dhibaatada noogu darana halkan maanta uga cabanayna waa isbitaal aan ku xawil dadka dhalaya oo anaga wax ka qaban weyno magaalada tan waxa looga yimaadaa 40 degmo 40 beelood baa degmada looga yimaadaa 20 Ethiopia safkada iyo 20 Puntland 40 ka meelood shacabka ka imaanay waa garan ka daan bishii arqalada noogu imaataa waa 10 ama 15 ama 12 baan waxaan u gudbinaa from hospital kalkacyo halkaas gabadhii oo 3 bari fuulaysay oo ilmihi ka soo jeedaan waxaad ka garan kartaa dhibka weyn ay ka soo gaarayaan inay gabadhaasi ay la kulmayso jidka rafka ah markii meesha la geeyay makaanka waa dilaacay ilaa awal 3 bari ilmuhu ka soo jeedaan hooyooyinka soo xoranayaan geedba 7 bari aan fuulanay wax cusri male ilmihi marka jidka rafka la mariyo maamadii minkii furan yahay waxa imaanaya in makaanka dilaaco in kaad haysti dilaacdo in dhibaato badan la kulanto in qalleen ku xumaado inayba weydo kalkacyo xataa dhakhtarka wax qalayay shalu duulaa la leeyahay markaas hooyadii ay carqalado badan halka nagala kulmaan cudurrada meesha aan ugu badan waxa way kala musiyada hadda maamada hadii kala musiyo ku dhacdo waa garan ka dhaan haddaan axbadiyaas baan ana sii karaa una dhaqaadiirayno nurses ka nahay waa garan ka dhaan maamadii jidkaas maanta iyada carabka cunaysa iyadoo baabado burburtay baa la geynhayaa waxa kaloo imaanaya ilmihi yarka ahaa oo nafaqa darrada ku dhacday oo ama tuulooyinka ka imaan wadanka xoolaha waa ka xaalufeen caanaha ilmuhu ku noolan jireen subag bay ku noolan jireen ilmihi waxa ku dhacay qufac limon iyo isbedelay anemia qaadan cudurro wadar diyaariya imaaday halkaas waxa ilmihi ayaga naftarkooda ku dhacay baaba weyn bishii ana wax gudbin 12 17 18 cunug baa gudbinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qaybaha kale MCH qolkan waa qolka farmashiga sida u jeedaanba isagana daawooyinkii iyo biskudkii nafaqada ahaa iyo soolarradii baa ku jira labada soolar oo meesha ku aragtaa midna adra dhigtay hay'adda midna UNICEF baa dhigtay dadka shacabka ay wax qabsanayaan hay'adda batartan wax u galaysaa siday shacabka ugu qaban lahayd isbitaalkan reer Galdood isaga xiray mooyaane hay'aduhu emergency ku furi lahaayeen waa mahadsantihiin qaybtan waa qaybtii farmashiyaha خلاص saddex qof baan kaga shaqeynaa meesha tan saddex qof waxa bixisa bisha cas baa bixisa lacagteeda laba qof oo qofka waardiyaha iyo nadiifiyahana community-ga bixiya lacagtooda marka gabadhii waxay ku jiraan umul oo alaabteeda qalabkeeda anaga ka horeeyay waa qolka OPD-ga wiilkana tababar buu iga jira qaybtana waa qaybtii dressing dadka lagu nadiifiyo lagu dheeyay qolkan qolka OPD dadka mutadawiciinta ay sida volunteerka noola shaqeeya waxa ku jira waardiyaashii iyo nadiifiyaashii iyo volunteerkii bisha cas ee u shaqeynaya iska wax qabsada qolkan waa qolka dhaliska oo gargaarka degdega ah bay u shaqeeyaan qolkan waa qolka dhalmada sariirtan waa sariirtii dhalmada waa bad delivery sariirta dhalmada way sariirta tani qalabkeeda waa wadataa waxaana keenay hay'adda keentay wacyigelin baa ku qoran meesha waxa ku qoran hooyooyinka inaga wacyigeliyo inay siiyaan ilmaha naasnuujinta kaleento wacyigelinta dalba ugu dhagan tahay in la iska ilaaliyo HIV/AIDS-ka in farxadka lagu dadaalo wacyigelinteedana waa ku dhaganta qolkan waxaan siinaa sariiraha kan waxaana siiyay community-gaana siiyay noogu deeqay muxuu haytay ee noo keenay qolkan bisha cas xeerarkeeda waxa kamid ah xasha la'aan dhexdhexaadnimo madax banaanin tadawacnimo midnimo iyo caalamnimo inaan ummadooda ugu shaqeyno halkan waxa ku yaal waa talaalkii ilmaha sida loo barayo volunteerka ah in la baro in laga talaalo ilmaha talaalka qaaxada oo kale cudurrada dilaaga ah jirka iyo noocyada ay talaalku kala yihiin BCG OPV DPT measles iyo TT iyo habka loo talaalahayay waxaan dhan waa wacyigelintii ama shaqooyinka tababaradii
lagu qabanayay kan waa miisaankii ilmaha yarka lagu miisaamayo aan 1 under 5 yarka ah qolkan waa qolka tababarada u qaatay miisaskan iyo kuraastan iyo sawiradan dhamaan waxa iskala bisha cas waxaan oo dhan CBHdan training iyo tababarada aan ku qabanay weeye tababar kasta markii la qabto waa la dhijinayaa waxyaabuhu ka hadlayay hadduu shilka ka hadlayay hadduu shuman ka hadlayay hadduu ka hadlayay colorin in la qaado waa qolkan baan ku qabsanaa wacyigelinteedana waa kuwaas dhammaan sida ugu jeedaanba wada waa mahadsantihiin booqashadiinuna waxaan jeclahay insha Allah inaysan noqonin midaan oo kaliya inay noqoto mid wax qabad leh oo nolol qabto wax nala ka badbaadiyo dadka miinooyinku la qarxayaan dhibaatada badan ka soo geystay oo bishii aad moodo in naloo kaadinayo bilbil laba bilood markay joogaan dadka ama 5-6 qof ku dhimanayso haddii hadda qofku noolaan lahaana ay jidka rafka qofka sii dilayo ama caruurta yararka ama hooyooyinka dhalaya oo jidka rafka u baabiyay waxaan codsanaynaa jaaliyadeeda aad iyo aad baan waxaan ku faraxsanay istaalka sharafta loo dhisteen laakiin aydan ka dhex muuqanin bismillaahir rahmaanir rahiim MCH ka sidiisaba MCH markuu yahay magacaas wuxuu turjumaa xanaanada hooyada iyo dhallaanka hooyada uurka leh iyo ilmaha cunuga caloosha ku jira iyo ilmaha kale oo ka yar 5 sano xanaanadooda sida daawadooda daawayntooda caafimaadkooda la socodka hooyada uurka leh qaab jiifkeeda ilmaha xagga yaani dhigyarida marka laga fiirinayo hooyada dhasho oo markay dhasho ka bacda ama dhigbaxa la kulanta ama yaani ma taqaana oo aneemiga ku dhaco adigu waa xarunta lagu xanaaneeyo hooyada iyo dhallaanka halkan waxa ku arkaysaan inay tahay qolkan waxa loo sameeyay delivery room baa la dhahaa in hooyadu ku dhasho dabadeedna ilmaheeda iyo caafimaadkeeda iyo yaani ma taqaana si loo ogaado loolana socdo gurigan markii horeeto waxaa noo dhisay NGO baa dhisay magaalada macnaha kamida oo dadka magaalada deegaanka ah NGO gaas oo la dhaho Sawdo gurigan waxaa la dhisay 2006 baa la dhisay isla mar ahaantaas shaqaaluhu dadka magaalada u dhashay bay ahaayeen cidna mushaar iyo waxba kama qaadan jirin volunteer bay ku shaqeynayeen ilaa 2008 la gaaray macnaha shaqadaas ma xan bilownay shaqada iska wax qabsada 93 oo wadanku burburkii la dadku soo yaacay ilaa inta 2008 hadda hay'ad Marlin la dhaho 2008 ilaa hadda xogaan mushaarana siisay inta kale iska wax qabsan ku shaqeynayeen ilaahay ma hada ka gaadho heer walba waa soo marnay markaan aad baa u fiicanahay daawaan helaa shaqaaluhu xoogaa waxay helaan xoogaa yar mushaar oo kaalmayn helaan dadku si fiican buu uga faa'iideystaa daawa loo keenaa 3 biloodba daawa loo keenaa hay'ado badan baa maaragtay meeshaan yaani gacan ku haynteeda hay'adaas khaas ahaan gacanta ku haysa laakiin UNICEF iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Marlin hadda saddexdaas baa noo keena hadda xagga daawada aan kala xiriirnaa shaqaaluhu wax mushaar qaata iyo waxaan mushaar qaadan ba waa leeyihiin dad volunteer hadda waa jooga oo gabdho yar yar oo xagga nutritionka ama xagga yaani talaalada IBA-da gabdhaha ka shaqeeya waardiyaha nadiifiyaha waxyaalahaas oo dhan 3 qof oo kamid ah dadka jooga baa xogaa mushaar qaata inta iyada sa isku celcelishanaa insha Allah waa iska barakaysanaa hadday hadda naga tagaana sidii oo kale aan diyaar ugu nahay inaanu dadkayga u shaqeyno oo aan volunteerka ugu shaqeyno hadda jaaliyada dibaddana insha Allah waan rajaynaynaa inay wixii ay nagu kaalmeyn karno ay ku kaalmayso ay nagu kaalmayso haddaba korontada biyaha waxaan nagu kaalmeeyaa shirkadaha lacag lagama qaato waa free day weeye biyaha lacagna lagama qaato korontada lacagna lagama qaato maadaama ay tahay adeeg bulsho marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad qolo walba oo degmada Galdogob u dhalatay macnaha Galdogob qabiil maaha waxa degano qabiilo badan baa degan marka qolo walba oo ay qusayso ayuu u furan yahay marka intay qusayso iyo intii degmada Galdogob tirsanaysaaba inay wixii kaalmaa oo ay hooyooyinkaas badiba maarta hadda inta waxa naga xiran isbitaalkii dhibaato badan baa uu dabaraa MCH ku oo yadhig baxaysa waxyaalo badan oo aan shaqo ku lahayn baan noqonaa insha Allah haddana isbitaalkii waa in loo furo rajaynayna oo aanu ka faa'iideysano kaalmeynta kale waxa dhib nagu hayay hooyo aan dhalin oo ilmihii ku jiraan oo dhagaxa la sii saaro taas aad bay dhibaato noogu haysa haddii uu isbitaalku noo furmo waxaan noqonaynaa degmo dhan walba isu ceshato meel fiican gaadha insha Allah aan ku celiyo shaqaalaha waxa weeyaan qualified nurses
saddex baa jooga midwife oo umulsa aniga weeye xaw faarax shire maxaan ku dhahaa iiba ayda qaybta iiba ayda waxa la dhahaa ciyaalka gabdhaha yar oo talaalka bixiya gabar nutritionka noo joogta iyo saddex qof oo talaal afar weeye iiba ayda afar ilaa laba saddex nurses 7 aniga 8 maxaan ku dhahaa laba kale oo caawiyaal 10 nadiifiyaha iyo waardiyaha 10 iyo laba qof weeye بشي بنسى قياس حقنا ولا ودينا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم meeshaan waxa weeyaan MCH-ka Qudus oo ku yaala degmada Galdogo madaxa MCH-ka waa kana sida hore loo warbixiyay xawa farax shiro weeyaan anigu waxaan kamid ahay shaqaalaha MCH-ka waxaan qaabilsanahay OPD-ga shaqada waxaa kamid ah waxaan ku shaqeynaa wax la yiraahdo RDT oo kan oo idin muuqanaya beeshinka noo imaanaya bishii adigu wuxuu noqonayaa ilaa 800 had bisi weeye marka soo celiyo shaqaduna runtii aad bay u fiican tahay xanuunada in kastoo ayaanahan ay iska soo badanayaan way u badan yihiin xanuunadaas oo qunfaca iyo magaranaysaa iyo waxyaabaha kale oo magaranaysaa ee la mid ah shaqaduna si fiican bay u socotaa inka loo yaqaan ama MCH-ka lagu qaboojiyo talaagadii oo jeedaan waxa lagu qaboojiyaa talaagadu waxay ku shaqeysaa waxa la yiraahdo gaaska ama oxygen-ta haamihii oo jeedaan gaaskii oo ku rakiban yahay qaybta barafaynta marka qolkan waxa la yiraahdaa qolka cold-ka oo lagu qaboojiyo talaalada nooc kasta ay yihiin waxaad sariirtan dadka lagu seexiyaa galbeed kuwan kale lagu seexiyaa wax ka bixaysaa zoom garaya miisaanka maanta miisaanka maayo araha aan qaybin lahaa ma wanaag ay sameeyaan caarisama kii halkan kii oo caadi ah hadda waxay markeen aw sano kaliya geeli jireen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا waxaanu dhex taaganahay sidaad muuqaalka ka aragtaan isbitaalkii weynaa ee degmada Galdogob isbitaalkan oo runtii taariikh badan soo maray ninka hadda idin hadlaya waa la yiraahdo magaciisa Axmed Maxamed Xasan Urshe waa gudoomiyaha guddiga isbitaalka sanadii u dambeeyay gacanta ku hayay ilaa haddana insha Allah taala wali guddi ka isbitaalku sidaad la socotaanba maraaxil badan oo fara badan ayuu soo maray alxamdulillah hadda wuxuu marayaa meel fiican intii guddigaasi gacanta ay ku qabteen wuxuuna sameeyay barnaamij ah inuu maaragtay ay bandhig u sameeyay shirkadaha madaxa bannaan si private looga dhigo waxaana hadda uu guddigu uu heshiis la galay company ka dhisan imaaraadka oo la yiraahdo Darul Dawa heshiiskiina ay kala saxiixdeen aan rajaynayno insha Allah taala hadda bisha soo socota January isbitaalku inuu furmo sida naga soo gaadhay nimankii company-ga ahaa isbitaalkana waxay ka qabteen shaqooyin fara badan oo hadda intii hadda ay la wareegeen iyagoo dib habeen ku sameeyay dhammaan isbitaalka hadday noqon lahayd dhinaca rinjiga hadday noqon lahayd dhinaca korontada intaba insha Allah taala marka waxaan rabnaa inaan idinku wareejino wakiilka shirkadda hadda u jooga ama company-ga u jooga Galdogob oo hawsha u waday si uu macluumaad nooga siiyo insha Allah bal meesha ay wax u marayaan company-ga iyo xilliga la rabo inay maaragtay barnaamijka isbitaalku uu si u furmo kama dambaysa Xuseen Faarax Ali Xuseen Dhakil baan rabaa inaan ku soo wareejiyo insha Allah taala sidoo bal macluumaad nooga siiyo meesha
isbitaalka xaaladiisu ay marayso furitaankiisa kusoo dhawow xuseen. aada iyo aad baa umahadsan tahay qorshe oo ah gudoomiyaha guddiga ka dhisan degmada Galdogob oo isbitaalkan kaliya ma aha meelo badan runtii wax ka qabta oo aan isleeyahay haddii aynan iyagu wax ka wadanin ama aynan hawlo badan ka qabanin degmada Galdogob wax badan baa indhaha isku qabsan lahaa sida nadaafadda muxuu ahaa ganacsiga hay'adaha samafalka keenistooda biyogelinta intaba nimankaas ganacsatada oo guddiga ah ayaa gacanta ku hayay isbitaalka sida aad la socotiin sida uu idin sheegay gudoomiyuhu marxalad badan buu soo maray wuxuu ahaa isbitaal ay dhiseen muxuu ahaa dadka qurba joogka ama loo yaqaano maaragtay diasporaha u dhashay degmadan Galdogob kadib markay dhiseenna waxay ahayd inuu isbitaalku furmo qolo isla dadka ka mida ayaa damacday inay fudho adigu sababa jira awgood ayuusan u furmin oo la oran karo xagga dhaqaalaha ayaa sababo ah wax kale anigu hadda u aanayn mayo kadibna guddigan markay gacanta ku qabteen waxay horta marka hore ka fakereen nabadgelyadiisa si uu ammaan u helo oo asagu sidiisa ugu ahaado isbitaal ayay ka fakereen dad muxuu waardiyeeya ayay u qabteen dadkaas oo ayagu lacag ayagu iska qaadaan ay siin jireen kadibna tandar bay fidiyeen siduu gudoomiyuhu idin sheegay ciddii isbitaalkan furi lahayd ayay waxay u fidiyeen tandar ama muxuu ahaa in ay sidii loo furi lahaa qaabkii loo furi lahaa ayay shirkado badan iyo adduunka tandarkaas u kala direen tandarkii ay fidiyeen waxa ku guulaystay sida uu gudoomiyuhu idin sheegay shirkad la yiraahdo Daral Dawa Company oo ganacsato ka kooban nimankaas ayaga ahi sida uu gudoomiyuhu idin sheegay waxbay ka qabteen lacago tiro badan oo dadkii hore oo shaqaalaha ah ku sheeganayeen isbitaalka way bixiyeen inteedii badnayd dabcan waxna way iska harsan yihiin laakiin way bixiyeen wax harsanna ayaga ayaa bixinaya waxay kaloo sameeyeen dayactir guud isbitaalka oo isku dhex daatay intii uu xirnaa dhammaan gudahaba xagga rinjiga xagga nuuradda xagga nadaafadda iyo xagga korontada dhammaanba waa la dayactiray muuqaalka hadda idinka muuqda waad arkaysaan meel qurux badan inay tahay oo aada iyo aad muxuu ahaa loogu hiloobi karo quruxdeeda ama indhuhu uga helayaan isbitaalku oo hadda baahi weyni oo jirta oo taagani ay haysato awgeed oo dadkii sugi la-yahay kambanigu tabaabushadiisii ugu dambeeyey iyuu soo dhammaystay dhaqaatiir 2 dhakhtar oo midna uu yahay qalliin midna general yahay waa la hayaa oo imaanayaan oo masaariya qalabkii oo China laga keenay hadda Dubai buu yaalaa maalmaha soo socda ayuu nagu soo fool leeyahay farsamo yaqaanadii qiimeyn lahaa qalabka yaala wixii shaqaynayay waxaan shaqaynayn ayaguna way imaanayaan insha Allah kariim waxaan filayaa maalmaha ugu soo horeeya ama ugu dambeeya bishaan ama ugu soo horeeya sanadka inuu isbitaalkan furmi doono haddii alla yiraahdo isbitaalkan oo isbitaal hamiyad weyn u leh dadka ah ummadda degan aagan oo muxuu ahaa isku xidha Ethiopia kililka shanaad Soomaaliya iyo meel walba isku xirta isbitaal center u noqon kara qaadi karana mugooda inkastoo waxyaalo qayb ka mid ah wali ay dhisnayn hadda waxaan leenahay insha Allah kariim meel kasta oo ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waa wax lagu farx kala isbitaalka general waxa la yiraahdo Mudug General Hospital waana waxa public private partnership weeye lama oran karo waa private caadi iyo public kama marna sidaas oo hadda ku shaqeeyaan isbitaalaga caalamiga ah waa public private partnership hadii rabbi yiraahdo sidaas ku shaqeyn doona oo waa isbitaal dadweyne isla markaasna koox private ay hawshiisa wadayso intaas baan ku darsan lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim halkan hadda aanu taaganahay sida hadda
ninka hore idiin sheegay waa haantii magaalada biyaha siinaysay ee shirkadda biyogelinta galdogob haantaani waxaa la dhisay 2004 waana haanta ay saddexda ceel ee magaalada biyaha siiya iyo xoolahaba ay kusoo shubaan biyaha haantu waxay ka kooban tahay 2 qaybood qayb hoose oo kayd ah iyo qayb sare oo iyaduna magaalada biyaha siisa haanta sidaad ka aragtaanba waa dhererkeedu waa taqriiban 12 mitir meelahaas waxay qaadaa ugu yaraan adigu 500 oo fuusto waana haanta magaalada biyaha siisa haantani runtii magaalada meelaysan biyaha aysan geynin oo magaalada ah ma ay jirto meel walba way saari kartaa walow hadda maaragtay ay jiraan meelo maaragtay aad u fog oo maaragtay aysan biyaha geyn karinin laakiin hadda intii ilaa xad maaragtay insha Allah magaalada way kaafisaa marka insha Allah taala de wixii hadda ka dambeeyana waxaanu tagi doonaa oo aanu soo arki doonaa ceelashii biyaha soo saaraya haanta iyo meelaha ay ku kala yaalaan ceelka ugu yar baa taqriiban wuxuu jiraa waan isleeyahay 1 kilomitir iyo bar oo biyaha soo saara marka insha Allah taala waxaanu u gudbi doonaa oo aan hadda tagi doonaa insha Allah taala ceelashii biyaha soo saaraya haanta wabillahi tawfiiq sidaanu isku ogeyn macnaha hadda waxaanu maraynaa ceelashii shirkadda mid ka mid ah ceelkani waa ceel haanta kaliya toos ugu xiranin oo asagu uusan maaragtay xoolaha aan maaragtay biyasiin ilaa hadda oo aan loo diyaarin meelihii xooluhu ka cabi jireen laakiin wuxuu toos ugu shaqeeyaa magaalada kaliya saacadiina wuxuu soo saaraa 75 fuusto marka waa ceelkii ugu dambeeyay oo ay shirkaddu ay habayso diyaariso oo waxaan la qoday sanadkii 2007 marka sidaas weeye insha Allah halkan waxa weeye waa qolkii motorka oo shirkadda ceelku ku shaqeynayay saacada hadda uu istaaran yahay hadda wuxuu wadaa biyihii oo wuxuu wadaa saaran yahay ahaantii magaalada marka sidaas weeye insha Allah wabillahi tawfiiq فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوما ونجمك آفل فارفع الرايات وامضي قدما تسرد القنديل واشعل همة واركب الأهوال مهما أظلما فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى أفقا فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فارتقي في الخير وارقى أفقا من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقع في وجه العدا إن للجنات
سحرا محكما فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس رمزا ملهما فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العليا مسلمين أنت عنوان لأمجاد الهدى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد. بسم الله الرحمن الرحيم. halkaani waa magaalada la yiraahdo Madiina oo matoorkeedii sida aad u jeedaan halkaani waa waaskadii xooluhu ka cabayeen matoorkii iyo haantii dhulkaani waa dhul deegaameed haddana ku darsaday inuu yahay dhul beereed istiraatiijiyadiisa wadadaani waa wadada aada hawd iyo ciid sidii loogu talagalay ama deegaameyntiisu ay ahayd waxay ahayd guud ahaan beesha ku abtirsata asaaska magaaladan in dadkoo dhan ay u dhex tahay oo aan la kala xigin ee la dego oo la maal gashado waa u jeedaanoo hadda dadkii waddankan degay wixii tabartooda ah waa la degay sida aad arki doontaan matoorka markii laga baxo magaaladii waa aynu hadda u gudbi doonno waa dhul isku xir ah oo centraalka waddanka ah insha allahu tacaala waxaanu ugu yeeraynaa dhulkaa khayraadka badan in laga faa'iidaysto xagga horumarinta waxbarashada tacliinta oo dadka ehelkaa iyo wixii raba inay maal gashadaanba lagu soo dhaweynayo waxaanu haddaanu nahay dadkii meeshan aasaaskeeda lahaa beeli gaar uma leh dadkay ka dhaxaysaa oo u dhex tahay fakerka dadkii iska lahaa sidii ay ugu talagaleenna waxay ahayd dadka wixii heli karaa inay meeshan maal gashadaan oo degaan haddana sidii baa loogu yeerayaa oo loogu baaqayaa anfac ahaanna waa meel wax walba ku habboon oo anfacaysa masaafada ay gobolka u jirto masaafada ay degmada u jirto masaafada ay bari u jirto markii la eego waa meel xudun ah oo waddanka xudun u ah marka waxaanu ugu baaqaynaa jaaliyadaha beesha iyo wixii danaynaya horumarinta waddankaba inay ku soo dhowaadaan meesha wabillahi tawfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كل كان قابل حان جعلها إن كسر بلغو بربحين قابل إيو تلسو تشيدين بربحين تا وحان جعلها إن كبلابو إن ددك جاليدها وبشاريو وبشاريو ددك دلك جوجه ودقن وكنول إنay wax fara badan oo khayr ah ku nool yihiin oo noloshoodu wanaagsan tahay dad xil qabeen ah oo ahlu diin leh oo waxgarad leh oo aqoonyahan leh oo siyaasiyiin leh oo culimo leh oo intuba khayrka iyo horumarka iyo wanaagga ummadda ka shaqaynaya inay joogaan tusaale waxaa ugu filan waxaan soo marnay magaalada Galdogo waxaanu nimay magaalada Gaalkacyo magaalooyin aad u fara badan waddankaana waan maray waxyaabaha la yaabay waxa ka mid ah oo muhiimka ah dadku say nabadgelyada ugu dadaalaan iyo xiriirka bulshada Soomaaliyeed ay la leeyihiin dadaal kasta ama kharash kasta oo kaga baxa dadku in nabad ummadda lagula noolaado ayay u huraan xataa waxyaaba aysan geysan ama laga gardaran yahay inay bixiyaan baan ogaaday si ummaddu aysan u kala ifloobin oo aan dhibaato uga dhex dhicin waxyaabaha la taaban kara waxaa ka mid ah dadka safraya ama gaadiidka ku shaqaysta oo baabuureyda ah bari salkiisay tagayaan galbeed meesha u shishaysa jigjiga iyo goday ayay alaabooyinka iyo badeecooyinka geynayaan gawaaridu hargeysa ayay tegaysaa wax geynaysaa waxna ka soo qaadaysaa
beledweyne iyo muqdisho iyo buuraxaawo qaar baa xuduudka kenya tallaabaya intaa cidna ka baqimayaan oo cid ay isleeyihiin wax xumaana idinka dhaxaysa ama dhibbay idin geysanaysaa ma jirto marka sumcad iyo ixtiraam iyo walaalnimo iyo xiriir wanaagsan in bulshada ay dadku awood u yeeshaan inay kula noolaadaan iyadoo fawdada iyo beladaasi ay jirto waa wax weyn oo dadka lagu ammaani karo loogana mahadcelin kara ilaahayna ha ka abaalmariyaan leenahay cid kasta ka qayb qaadata oo ka shaqaysay waxaa qodob labaad oo bishaaro ah dadku marka ay doonayaan inay horumar gaaraan oo ay meel sare hiigsanayaan hamiga sare iyo hanka weyn ka sokow waxay u baahan yihiin waxyaabo aasaas u ah inay hinqadaan oo horumar ku tilaabsadaan waxyaabahaas waxaa ka mid ah waxbarashada waa sax waxbarashada aada iyo aad baa gaabis uga jiray muddo dheer laakiin xilliyadan dambe soo kabasho weyn iyo horumar badan baa runtii bilowday magaalada galbeedka oo aan soo marnay 2 sekondari ayaa ardaydu muddaba ka soo baxayeen machad heer dugsi sare ah oo diiniya ayaa ka furan oo culumta shareecada iyo luqada carabiga iyo culum kale oo dheeraadaba lagu barto iskuullada mid ka mid ah waxaa la ii sheegay in uu sanadkii dhowey puntland oo dhan lambar 2 galay waxaa muhiima inaan sheego inay leeyihiin laabab ama shay baaro ardadu ay maadooyinka ku bartaan cilmiga ah oo aan fili doono inaad meesha ka arki doontaan kumbuyuutarro ayaa jira ardada wax lagu baro oo magaalada ugu dhex yaalo ay dowrooyin iyo koorsooyin ku qaataan waan filayaa in waqti loo waayay in la soo sawiro laakiinse internetka ku jira iyagoo ardadii ay wax baranayaan oo warbixin hore looga qoray waxyaabaha kale oo la taaban karo wax weyn ummadda ka bedelaya waxaa ka mid ah machadka sharciga muddo yar oo 2 sano ah ayuu furnaa ardayda dhiganaysa oo sida tooska u dawaamta 450 iyo dhowr weeye kuwa aqoonta diineed lahaa oo la doonay inay shahaadooyinka ka qaataan oo imtixaanada la galana 16 weeye 470 bay marayaan waa waqti gaaban waa wiilal iyo gabdho dad waaweynada yarka isugu jiraan aqoon heer sare ah oo diineed bay dadkaasi yeelanayaan jaamacadaha diiniga iyo kuwa kale oo artiskaaba way geli karayaan waa guul weyn oo dadka runtii u soo hoyatay 100 iyo dheeraad arday baa sanadka soo socda sanad dugsiyeedka hadda socda ka qalin jabin doonta oo u baahan inay jaamacado helaan kuwaas oo ka dheeraada kuwa dugsiyada sare dhiganaya inkastoo ay jiraan arday badan oo labadaba isku dhigata oo labada aqoonoodba isku wada machadkaas markii la asaasayay fikradda lagu asaasay waxay ahayd xarunta wax lagu barto dhulka iyo wax yaroo ka dhisnaa horey baa reer galdogob u iibiyeen reer boosaasana wax yar bay ku taageereen marka la furayay waxaa la yidhi qalabaynta iyo sanadka hore kharashkiisa reer galdogob ha ku aadeen kadibna dadka jaaliyadaha ha u aruuriyeen xoogaa xoola ah oo loo maalgeliyo oo waxa ka soo baxa lagu socodsiiyo arrintaa markii la qaybsaday oo dadka ay aada u farxeen oo soo dhoweeyeen ayaa dhaqaale xubadii berigii ay dhacday maraykanka ka bilaabatay adduunka kalena ku faaftay oo raggii waxba la qaaday ganacsatii u badnaayeen ay arrintii sidaa ku daahday laakiin ilaahay mahadiis dhawaantan dambe dadaal ayaa dib loo bilaabay isku day fiican oo hawshii dib loogu soo abaabulayo marka waa jeclahay inaan ku baraarujiyo dadka in hawshaa la dhammaystiro oo wax machadkaasi uu ku socon karo faa'iidadiisa uu ku socon karo in loo aruuriyo dadka bixinayana waxay u tahay sadaqo jaari ah oo cilmi iyo khayr iyo diin lagu baranayo oo dadkoodii ay ku hagaajinayaan machadka laascaanood oo macaahidda soomaaliya ka furan ugu horreeyey uguna caansanaa oo sidaas oo kala yeelay oo lacag 200 kun inta u aruuriyay u maalgeliyey waxay weliba ku dareen rag dhowr iyo 10 nin oo inta is aruursaday 12 kun oo dollar bishiiba dhaho sanadkiiba ku kaba faa'iidada uga soo baxda 200 kun iyo 12 kun bay ku socodsiin jireen kadibna ilaahay xoolo kale oo badan buu siiyey oo ay maalgelin la doonayaan si ay hawshaa ugu sii socodsiiyaan intaanan marka meeshaa ka bixin waxaan rabaa inaan sheego fikrad ah waxaan wadnay magaalada inaan keeno farac jaamacad la yidhaahdo jaamicat almadiina alcaalamiya jaamacadda madiina ee caalamiga ah
oo xarunteedu tahay magaalada Kuala Lumpur ee waddanka Malaysia macallimiinta jaamacadda Madiina Munawwara rag ka mid ah ayaa jaamacadda furay oo diyaariyay manhajka waxbarasho ee jaamacaddaas ayaana ay dhigayaan laftoodu waxa ay ka kooban tahay culumta quraanka iyo culumtiisa waa qaybina waa xadiiska nabiga iyo culumta ku saabsan qaybina waa fiqhiga iyo usuushiisa qaybina waa caqiidada iyo dacwada ayay ku saabsan tahay qayb kale oo shanaadna waa luqada carabiga qayb kale waa computer science-ka qayb kale waxay ku saabsan tahay maamulka iyo maareynta business-ka waxyaabahaas oo iyaguna sii kala baxbaxa labada qaybood oo dambaba waxaa jira qayb barashada luqada ingiriisiga oo diploma lagu bixinayo waxay leedahay qaybo masterate iyo PhD ah oo diinta iyo luqada carabiga iyo maamulka iyo computerka ay ku jiraan jaamacadaas marka waa jaamacadaha online-ka wax laga barto waxaan marka isku daygaa wadnay intii muddo waxaan rajaynaynaa sanad dugsiyeedkani marka uu dhamaado ka dambeeya inay ardayda meesha wax ku bartaa ciddii aan kulliyada scientific aadayn oo dhakhtarnimo iyo injineernimo iyo aan aadayn meesha inay wax ku bartaan oo jaamacadihii meesha loogu keeno lacagta waxaan rajaynaynaa ardayda laga qaadayo kuwa jaamacadaha waddanka inay la ekaato ama aanay wax weyn dheeraan kaliya waxay u baahan yahay dhul weyn oo loo dhiso iyo in la qalabeeyo oo kombiyuutarro iyo internet xoog leh la geliyo waxay u baahan tahay hal professor oo ardayda caawiya iyo nin tiknolojiyada kombiyuutarka ku wanaagsan oo shabakada iyo qalabkan iyo ka shaqayntooda qaabilsan iyo shaqaalaha hoose oo nadaafadda iyo waalidiyaha ah iyo khadamaadka yaryar ka badan kharash annaga noogama baahna ardadu iyagaa lacagta jaamacadda iska bixinaya laakiin ninka professorka ah iyo ninka farsamo yaqaanka iyo khadamaadka yaryar bay nooga baahan tahay iyo inay dhisme hesho jaamacaddaasi qalabaynta aan sheegayana waxaa loo baahan yahay kombiyuutarro tiro badan in la dhiga meesha oo duruustu waa duruus kombiyuutarka laga qaadanayo ardadu waxyaabo tiro badan oo loo dirayo bay kombiyuutarka la rabaa inay u maraan iyo internetka intaasay u baahan tahay waxaan rajaynayaa marka heshiiska la soo saxiixo inaanu baahida kharash ahaaneed ay u baahan tahay aan soo bandhigno waxaan isku dayaynaa magaalada inaan ka raadino dhul xaruntaas laga sameeyo si tartiiba dhismaha waa loo samayn karaa taana waa jecelahay inaan bishaarooyinkana ku daro in dadkuna ay ka qayb qaataan aan u baahannahay waxaanse jecelahay inaan muujiyo machadka hawshiisa haddaanaan meel iska saarin oo kharashkiisu meel uu ka soo baxo aan loo samayn way adag tahay in la wado waayo wax sanad walba doonaya 35,000 ilaa 40,000 oo dollar magaalo sidaa u yar lagama aruurin karo oo culayskeedu waa tiro badan yahay guryaha lagu dhigayona waan filayaa inaad meesha ka arki doontaan waa balbalooyin waxaanu niri cilmiga muhiim ah ninku guriga uu ku soo bartay wax saameyn weyn ma yeelanayo haddii qofku aqoon sare uu leeyahay arrintaas xagga waxbarashada horumar baa ka jira magaalada gaalkacyaal idinka warramaya waa xarumo tiro badan oo dabcan waxbarasho ku yaalaan machadkan cusub idinka ibnu taymiya sheekh axmed shaakir oo macallimiinta jaamacaddana ka mid ah uu aasaasay oo mudiir ka yahay magaalada boosaaso oo awal hore macaahid hore u lahay machad kale ibnu qayim la yiraahdo ayay ka fureen ninka la yiraahdo nin kale asna jaamacadda boosaaso wax ka dhiga oo la yiraahdo jaamac maxamed xasan ilka weyne oo asaguna ilaa heer dugsi sare oo kale ah waxaan jeclahay inaan xuso in samayntii iyo asaasidii hay-adda tusmo ee waxbarashada inay wax weyn bulshada kusoo kordhisay xagga wacyigelinta dadka ay ku dhiirigelisay in wax la barto inay abuurtay tartan aqooneed oo dadka magaalooyin kala duwan jooga ay ku tartamaan aqoonta arrintaasina guul weyn bay ahayd inay jaamacada ardada u diraan bay ka shaqeeyeen inay waxbarasho u raadiyaan bay ka shaqeeyeen saameyn weyn bay yeelatay wadamo dhowra baan tegey suuriya baan mar muddo deganaa qof baa joogay iyagoo aan wax weyn badankoodu dhammayn bay dabadaha u dhoofi jireen waxaan tegey suudaan waxaan tegey waddanka la yidhahdo sacuudiga waxaan tegey bakistan wadamo dhan oo wax ka baranayo oo deegaanka aadan arkayn baan la kulmi jiray hadda laakiin iska daa wadamadii Soomaaliya wax ka baran jirtay wadamo cusub oo shiino adduunka ku u fogaa uu ka mid yahay
ayaa tiro aada u badan oo ardaydii joogaan oo wax ka baranaya arrintaasina waxaan leeyahay dadaalkii waalidiinta iyo qaraabada caruurtu ay sameeyeen ka sokow qayb weyn oo libaax bay ku lahayd muasasadaas tusmo waxaan leeyahay marka muasasadaasi door weyn iyo kaalin weyn bay ku leedahay waxbarashada iyo dhiirigelinteeda iyo wacyigelinta bulshada waxaa loo baahan yahay iyadana si 100% in loo taageero oo qof walba meesha uu jooga rag iyo dumarba inay ku noqdaan tusmo xubno ka mid ah oo volunteer ah oo qofku uu wax ka qoro oo talo u soo jeediyo oo dhaqaale ku biiriyo oo uu xogteeda faafiyo oo qoraal ahaan looga faa'iideeyo arrinta noocaas aad baan u soo jeedinayaa intaas haddii aan ka gudbo waxaan jeclahay in warbixino kale oo duuban gobollada kale ee dhulka ama dalka laga keeni doono gobolka nugaal la yiraahdo iyo gobolka bariba iyadana sidan oo kale gobolka mudug wax la kaga soo duubay oo meelo kala duwan oo galdogob iyo meesha la yiraahdo gaalkacyo iyo Dar es Salaam iyo waxyaabaha laga soo duubay ka soo gobollada kalena wax la ka soo duubi doono arrintaas inay dhiirigelin weyn noqon doonto baan rajaynayaa arrimaha haddii aan ka gudbo ku saabsan waxbarashada waxaan jeclaa inaan sheego waxyaabo tiro badan oo horumarka ka qayb qaadanaya baa jira oo asaas u ah waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdo magaalada biyaa ugu jira gurigii aysan ku jirin waa wax yar waxay leedahay koronto har iyo habeen aan ka darin waxay leedahay isgaarsiin telefoonno iyo internet iyo khadamaad badan leh oo horumarka qayb weyn ka qaadan karta caafimaadka oo meelaha ugu liito oo laga dayriya waxaa laydin soo sawira laga MCH ubadka dhalaanka iyo hawooyinka ku saabsan meel TV dadka qaba lagu yara daweeyo isbitaal weyn oo magaalada laga dhisay oo dibna hadda loo naashnaashay oo in la furo uu keliya u baahan waxaan jeclaa intaan halkaa dhaafin inaan iraahdo isbitaalkan ismihiisu guri iyo horumar weyn buu ahaa dadkii ka shaqeeyeyna waa wax looga mahad celiyo oo ay ku mahadsan yihiin ilaahayna aan ka rajayn inuu ajar weyn ka siiyo loona baahan yahay inay ku farxaan waa shaqo badan oo loo baahnaabay qayb weyn dadku qabteen qaybta kale see loo dhammaystiraa unbaa dhiman waxaa la ii sheegay dadka dibadda jira nooc niyad xumo iyo inay ku beertay oo la leeyahay meesha isbitaalkiiba haddii la furi waayo dadkan waxba tarimayaan oo khayr ma laho run ma aha meeshaan waa waddan fawdo ah dadka deegaanka u dhashay oo dhakhaatiira oo badani hadday jiraan nin walba meel yar buu guriga inta kiraysto ayuu adduunka o dhan laga soo aadi lahaa doctor cabdicasiis dhakhtar indha ah magaalada boosaaso xaruntiisu ay isagii doctor baydhabo ay ku lahayeen xarun garowwana hadda xarunta usoo raray waxaa looga imaanayaa Soomaali galbeed waqooyi koonfur bari iyo gobollada dhexe oo dhan baa looga tegaya aqoontiisa keenaysa dhakhtar lafaha kaba oo Hargeysa ku yaala halkan intaan hadda joogo waxaad arkaysaa iyadoo gaalkacyo laga qaadayo iyadoo galdogob laga qaadayo iyagoo boosaaso laga qaadayo oo Hargeysa loo dhigayo waan tagay meeshaas waa guri xun oo villa ah oo aan naf lahayn oo rafaadka ka muuqda markaad kor ka eegtid markaad gudihiisa gashid baa la yaabaysid laakiin dadkii uu daaweynaya waana ku kabaya waxa way marka meesha aqoon baa horta dhimanay dad dhakhaatiira oo takhasusaad leh oo deegaanka ay haday joogaan isbitaallo waaweyn xataa uma baahdeen meeshanna mashaariicda iyo qalabka waxaa ka horeeya dadkii qalabkan iyo mu'asasadaha iyo dhismayaasha ka faa'iideyn lahaa baan joogin oo aqoonta u lahaa odayaal nabadoonna ah iyo niman dukaama gataana isbitaal wax kama tari karaan laana dhakhtar buu u baahan yahay dhakhaatiir shisheeye ah in la keenana wixii lagala kulmay waa ogeydeen shisheeyaa waxaan ka wada aan Soomaali ahayn si kastaba ha ahaatee hawshaasi guul weyn oo la gaaray weeye haddana bishaarooyinka waxaa ka mid ah dhalinyaro tiro badan oo cilmiga caafimaadka baranaysa baa jirta meel la kala istaagay in la waayo doona baan rajaynayaa waxaan intaana dhaafin codsanayaa bal ilaa rag tobaneeye ah markay heerka jaamacadeed ee caafimaadka ka baxaan in takhasusiyo kala duwan oo horta qalliinku ka mid yahay oo lafuhu ka mid yahay oo dumarku ka mid yahay horta bal in la isku dayo in kharashka takhasuska laga bixiyo ilaa heer magister ay soo qaataan oo Soomaaliyo dhan baa dhakhaatiir la'aan haysa gaar ahaan takhasusaadka qaarkood oo lafuhu ka mid yihiin iyo qalliinku aad bay u yar yihiin marka bal in la isku dayo hadda isxilqaankii iyo ahmiyadda cilmigu dadku way fahmeen dhalinyarada faraha badan oo caafimaadka baranaysa qaarkood in takhasusiyo haddaan la wada awoodi karin bal 5 ka mid ah laga baxsho 5 ehelkoodu ha gaar ahaan ha uga bixiyeen arrintaasina
waan soo jeedinayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa tusmana iyaga war xun toos ah mas-uuliyiintoodu in ay insha allahu tacaala xagga garowga nooga soo duubi doonaan insha allahu ustaad cabdirasaaq shoole oo nala jooga haddii aan ku guulaysana inaan halkaan wax kaga duubnana midaan gobolka mudug waa kusoo dhex daraynaa insha allahu tacaala intaana hadalkayga dhammayn waxaan jeclahay inaan laba kelimadood usoo jeediyo dadka qurbaha ku maqan midda koowaadi waxa weeye inay ilaahay ka baqaan subxaanahu wa tacaala diinta islaamkana ay barashadeeda iyo ku dhaqankeeda intii awoodooda ay ku dadaalaan iyaguna ay noqdaan dad isfahma oo walaalo ah oo isku kalsoon oo midaysan oo isugu duuban isu kaashiga khayrka watacaawanuu cala albiri waataqwa ayuu ilaahay yidhi isu kaashada wanaag samaynta iyo alla ka baqa isu kaashada wax walba oo wanaaga waxbarasho ah oo diin ah oo khayr ah oo ummadda horumarinteeda iyo kaalmaynteeda ah in la isu kaashado sidii loo wanaagsanaan lahaa dadka laftooda jaaliyadaha ina la isu kaashado oo horumar dhan walba ay u gaari lahaayeen dardaarankaas isfahamka iyo isku kalsoonida iyo isku duubnida iyo iskaashiga ah waan ku celcelinaynaa waana codsanaynaa waana idinku boorinaynaa waayo dadku inay iyagu laftooda wax u qabsadaan ama mas-uuliyiinta kala wax taraan waxaa aasaas u ah inay yihiin dad iyagu isku duuban oo awoodooda kala duwan ka wada faa'iideeya masalada labaadna waxa weeye iyagoo isku duuban si gaar ah inay taageero iyo wax ka qabasho waxbarasho ugu dadaalaan inay iyagu wax bartaan meel kastoo ay joogaan ubadkoodana wax baraan oo xamaal keliya aan waqtiga lagu lumin iyo dadka kale oo gaar ahaan dalkan soomaaliya degan inay ku taageeraan waxbarashada mid diineed iyo mid adduunyaba waayo horumarka furuhu waa aqoonta mar walba oo dadka aqoontoodu sare u kacdo wacyigoodu sare u kaco khibradoodu sare u kacdo horumarka ay gaarayaan saray buu kacaya xag adduuniya xag aakhiraba horumarku aqoon buu ku xiraya aqoon la-aan nina ma tillaabsan karayo adduunkana hadda lacagtii cilmigay gashay oo horumarka lagu tillaabsanaya mar walba cilmi baa lagu keenayaaye xoog weyne hadda adduunka keligeed ka shaqayn mayso labadaa tale waan ku celcelinaynaa is-afgarad isfaham isjacayl isku kalsooni iyo isku duubni waxbarasho diineed iyo mid adduunye in loo jeesto horumarinteeda iyo meelmarinteedana la isu kaashado ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu khayr adduuniya mid aakhiraba inuu waafajiyo wasala allahu wasalam cala nabiyina maxamed wa alihi wasaxbihi ajmaciin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحل يراد عبد الرزاق أحمد شولة هذا وحنا هاي maamulaha kulliyadda tababarka macallimiinta ee garowe jitek waxaan safar shaqo ku imid magaalada gaalkacyo oo barnaamijkan lagu diyaarinayay waxaana akhyaartiga codsadeen inaan barnaamijkan ka qayb qaato guud ahaan waxaan ka hadlayaa saddex dhinac dhinaca koowaad waxaa weeye waxbarashada dhinaca labaadna waxaa weeye developmentiga ama horumarka guud ahaan arrinta labaadna waxaan ka hadlayaa hoggaanka waxaan xubin ka ahay guddi isku xilqaamay 2004 horumarinta waxbarashada deegaamada mudug gaar ahaan galdogob iyo gaalkacyo barnaamijkaas baahida keenta waxay ahayd baraarug waxbarashada dalka ka socda baraarugaasna waxaa loo baahan yahay dadku inay la jaan qaadaan baraarugaas waxbarasho waan ogsoonahayo waxbarashada dalka hadda ka jirta ma aha waxbarasho dowladuhu ay fangareeyaan ama dowladuhu ay kharash ku bixiyaan ma jiro saa darteed cid waliba waxay u baahan tahay inay aayatiinkeeda iyo mustaqbalkeeda inay ka fakarto guddigu asagaa isxilqaamay markii hore ujeeddaduna waxay ahayd in la tayeeyo waxbarashada jirta lana sustain gareeyo ay noqoto waxbarasho joogto ah muraajaco ama review aan sameynay 5 sano kadib oo 2009 ah waxaa noo soo baxay wixii la qabtay wixii caqabadaha ay yimid
waxaa la sameeyey ujeedooyin cusub oo la rabo in la gaaro wixii qabsoomay kuma aysan qabsoomin shaqo guddiga kaliya ay qabteen ee waxay ahayd shaqo ay ka qayb qaateen dhammaan daneeyaasha bahda waxbarashada meel kastoo ay joogaan mahaddeedana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala marka koowaad marka labaadna waxaa iskale dhammaan dadkii ka qayb qaatay in la gaaro natiijooyinkaas wax ku oolka ah inaan si tafaasiila u galo ma rabo waxyaabihii qabsoomay iyo waxay aan qabsoomin waxaan filayaa dadka dibadda jooga waxaa barnaamijkaas ka haqabtiray tusmo oo ah organization guddigii baa markii dambe wuxuu u xubsiibtay organization loogu talagalay bal wixii in ay noqdo more institutionalized more inay noqoto muasasaati akthar marka tusmadu waa tusmadaas weeye waa community development organization membershipkiisa leh oo aan filayo dadka dibadda jooga warkeeda inay soo gaartay inuu soo gaaray ururku inuu warkiisa soo gaaray waa non political waa urur aan siyaasad ku shaqo lahayn waa urur aan ku shaqo lahayn diin waa urur aan ku shaqo lahayn waa urur loogu talagalay keliya horumarinta waxbarashada ujeeddaduna waxay ahayd wixii la gaaray in meesha lagu hayo iyo in lasii kobciyo baahida waxbarashada ee jira puntland waxbarashadeeda heerar kala duwan bay soo martay hadda waxay maraysaa waxay maraysay iskuul un hala furo oo wax un hala bilaabo looxjiid iyo waxay ku bilaabanaysaa ku bilaabato haddase waxay maraysaa tayadii tartan tayaa hadda socda waxbarashada dalka hadda ka socota waxay ku wajahan tahay dhinaca tayada ah marka tayada la aadayo dee muasasaad fara badan iyo iskuulla fara badan iyo dad shaqaynaya ururo waxbarashada ka shaqaynaya baa tareenka ka degaya oo waxay uga harayaan waxaa ka reebaya tayeyntaas iyo barnaamijkaas tayeynta ah marka wixiina ma aha wax ay dowladi daba taagan tahay ma aha waa wax la rabo community kasta iyo deegaan kasta iyo dad waliba deegaankoodii iyo meeshoodii inay iyaga ka shaqeeyaan hadday ka sugaan dowlad dhexe oo dee imtixaan dhexe intii la qaado iyo system dhexe oo hadhowta arda jaacad loo diro waxaan filayaa arrintaas arrin hadda loo fadhiyo inaysan ahayn dadka saa u fakeraana way ka harayaan ummadaha kale waa ogsoontihiin baraaruga waxbarasho soomaaliya guud ahaan ka jira puntland baa ugu laalaada marka la eego koonfur iyo marka la eego waqooyi labadaba magaalada boorama kaliya oo hal magaalo ah waxaa ku yaala 9 dugsi saraa ku yaala magaalada boorama kaliya waxaa ka soo baxa arday ka tira badan gobolka mudug oo dhan marka la isku dardaro secondaryada wax ka soo baxa kaliya weeye waa ogtihiin wax ku yaala marka hadday deegaan kasta haddii dadka degani aysan ka shaqaynin inay deegaanka horumariyaan oo waxbarashada horumariyaan oo tayeeyaan oo isku dayaan inay resource u helaan ilaa waxba kuma socdaan resource la-aan haddaan la isku dayin dadkaasi waxay ka harayaan tareenkay ka degayaan oo horumarka socda soomaaliya heerar badan bay soo martay heerka hadda socda waa tartan ku wajahan aqoon waagii qoriga lagu dagaalamayay iyo qorigii weli dalka ma dhamaan weli waa uu joogaa laakiin tartankaas aqoonta iyo jiritaanka dadka ah tartan lama huraana weeye oo la rabo dee qof waliba inuu ka qayb qaato waana wajhi min awjuhi lkhayr oo baahan dee qofku inuu istaago dadka dibadda aaday oo xabadii ka cararay burburka ka cararay dalalkay tageen baa hoy siiyey waxbarasho siiyey nolol siiyey laakiin ha ogaadaan dalalkaas ay joogaan iyaga uma aysan dhalan ha ogaadaan waa dalal ay marti ku yihiin waxay u baahan yihiin inay markasta maskaxda iyo maanka ku hayaan dalkoodii hooyo iyo degaamadii ay ka yimaadeen inay maskaxda ku hayaan bay u baahan yihiin marka waan leeyahay waxaan leeyahay lacagaha ceydha ee aad soo dirtaan ee dalka aad gelisaan ha ka fakerinina keliya dadkani inay noolaadaan keliya waxa ka fakerdhaan qofkani inuu kaa kaaftoomo adiga iyo gacan kale qofkani inuu isku filaansho inuu gaaro waxaana lagu gaari karaa waxa weeye dadki in aqoon tayaysan loo keeno dadka in lagu booriyo inay wax bartaan dadka in lagu booriyo muxuu ahaa inay iyaka wax qabsadaan laakiin mar waliba inta aawadi kadhid way yaraanaysaa waxyaabaha aan isleeyahay 10 sane soo socda isbedel la dareemo baa ka imaanaya waxaa ka mid ah lacagta caydha ee dibadda laga soo diro way yaraanaysaa waxaan wax kale lama yaraynaye dadka hore oo dalka dibadaha u qaxay dalkii aad ugu xoraayeenoo saaxiibe iyo qaraabe iyo abti iyo xidid iyo way lahaayeen ubadka hadda xagga ku barbaaray waxaa laga yaabaa inuusan wax qaraabo ah
oo macnaha qaraabo inuu u yaqaano aabba iyo hooyada keliya uu la nool yahay wax qaraabo ah dad ku xiriiriyay inaysan imaan baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa asxaab dalka joogto inuusan qofka uusan ku lahayn wayna dhacdaa dadka hadda wax soo dira waa dadkii dalka hore u tagay weeye dadka dalka ku dhashay ama ku barbaaray ku hana qaaday waxay soo diraan waa wax aad u kooban ama waxaa la oran karaa amaba ay jiraanba dadkaasna ama da' baa la tegaysa ama intuu qabowga iyo barafka iyo dhibaatada dareemaan dalka dib ugu soo laaban doonaan marka ha laga fakaro meeshii lama huraan cawska jilaale meesha lagu soo laaban doono in la helo facilities ama macnaha adeegii waxbarashada adeegii caafimaadka basic macnaha waxyaabihii asaasiga ahaa ee horumarka ahaa in la helo arrintaas waa lama huraan horumarka dalka ka socdaana hadda ma aha horumar ay dowlado waaweyn ay wadaan ma aha dowrkay ku leeyihiin wuu kooban yahay dal kasta iyo deegaamadii hadda burburkii kadib horu kacay oo aada u horumarayo sida magaalooyinka hadda u waaweyn puntland oo boosaaso kale oo burburkii ka hor waxba aan ahayn marka la eego hadda sida ay tahay dowlado ma aysan dhisina dadkaa dhistay dadkaa waxaa qabsaday marka xooggiina allaha idin tuso annakana allahana tuso xooggeenna iyo waxqabsigeena intaba marka arrintaas waan ku boorinayaa walaalaha dibadda jooga inay aysan dalkoodii hooye hilmaamin deegaamadoodii inaysan hilmaamin waxaan filayaa waxaa suuragal ah in la is yidhaahdo war dalka marbaa wax u qabanayo wax u qabtaan islahayno mashruucina uu naga bashiish mashruuca isbitaalkan ka hadlaya waxay aniga ila tahay waa aragtiyada shaksi ah weeye tusmana ma matalayso guddiga waxbarashadana ma ay matalayso haddii markii hore balaanka uu naga khaldamay khalad yaan khalad lagu sixin joy macnaha lagama fakerin isbitaalkan yaa wadaya yaa ku shaqaynaya dadka marka hore maskaxda waa la dhisaa kadib adeega loo sameeyaa adeeggaa ciddii hanan lahayd oo maamulan lahayd baa la sameeyaa waana waxaan isleenahay dadku hadday wax bartaan ubadka hadda waxbarashada ku jira iyo kaa berri waxaan hanan doona oo ka bixi doona wixii inay kala jiijiitaan ama ay ku maamulaan caqli macnaha nomad mind caqli reer miyi inay isku maamulaan iyo kaa ka bixi doona marka aan xorayno maskaxda dadka caqliga dadka aan xorayno oo aqoon ha lagu xoreeyo oo dadku inay fahmaan inay wax qabsan karaan ha lagu xoreeyo arrinta isbitaalkana hadda caymadii dee weli caym uu leeyahay mar haddaad dhisteen oo ka tagteen keliya halkaas kuma eka mishwaarka mishwaarku waa dheer yahay mishwaar atwal mishwaar dheer weeye haddaad istirahdeen daara aad dhisteen baa wax walba caafimaadka iyo horumarka dalka bedelaysa hadda bedeli mayso ogaada wax bedelaya waxaa weeye joogteen bay idinka baahan tahay iyo dulqaad iyo sabar marka isbitaalku yuusan hungo idinku ridin iyo muxuu ahaa iyo ka gows qabsi waxa dalka ka socda horumar baaxad leh baa dalka ka socda waxaan filayaa wax badanna waa aragteen qaybo kalena barnaamijka aad ku arki doontaan horumarka dalka ka socda iyo sida dadku iyaku ay wax u qabsadeen arrinta waa arrintaas dhinaca horumarka horumar la taaban karaa dalka ka dhacay dadka dibadda jooga ee laga yaabo dalka inay muddo imaan waxaan leeyahay maskaxdooda waxa bedeli kara waxaan u sheegayna keliya ma aha waxaan ku waanaya inay mar dalka yimaadaan bar dalka waxa dal ka socda horta ay arkaan ugu yaraan hinaasaa qaadaya iyo masayrkaasna danbaa waxaa laga yaabaa inuu miro dhal noqdo oo faa'iide uu dhaliyo marka dalka ha ka go-inine fadlan imaada eega shirkadaha socda waxaa laga yaabaa dad badan inay la weyn tahay xogaaga cayirtaha ama shaqada ay dalka aad ku haysatid war intaasi in ka badan baa dalka laga helaa oo khayraad oo waxtara laakiin waxaa wax ka helaya qof maskax firasha la yimaada qof qorshe ku yimaada qof aqoon iyo la yimaada iyo barnaamij la taaban karo baa laga helaa dhinaca hoggaanka haddii dal burburay baan nahay dalka dhanaa wada burburay maadaama dalka dhan uu burburay burburkaas burburay waxa ugu weyn dhismaha keliya maahane maskaxda weeye isbaarada ugu weyn oo dadka haddii hadda la weydiiyo isbaarada ugu weyna dalka taalla ma aha tan gaalkacyo controlkeeda taallo oo u dhexaysa galmudug iyo puntland udhexaysa ma aha tan ka shishayso ahlu sunna iyo shabaab udhexaysa ma aha tan udhexaysa somaliland iyo puntland ma aha isbaarada ugu weyn dalka waxay taallaa dadka maskaxdooda taallaa dadka maskaxda waa kala jarjaran la kala xirxiray marka bal maskaxdaas ha la isku furo oo aan isku dayno isbaaradaas inaan qaadno si dalku uu hoggaan wacan u yeesho oo dadkan isku qoqobaya meelahan koobana yar isku koobaya maskaxdooda ha waasiciyaan isbaarada maskaxda loo dhigtana oo qabiilka u dhigtay isbaaradaas fadlan ha iska qaadaanoo
macnaha ha ku talagalaan inay maskaxdooda xoreeyaan oo maskaxdooda ay open u ahaato dhibaatooyinka dalka ka jira marka qayb waxaa ka mid ah dhibaato hoggaan la-aanka hoggaan in la helo hoggaan dadka ay kusoo hirtaan oo in badan baa hadda waxaan maqlayay sanadka u dambeeyey shir bay qabanaysaa beesha tanade oo lasugu imaanayaayo waxaa laga wada hadli doonaa horumarkii iyo wixii iyo hadda ma aqaan mindhaa siyaasaddaa dib ka baranayo khilaafka gudaha yaalla laba jibaarkiis baa dibadda yaallana la ku yiri marka waxbaa ka socon waayo hawshii way dhibaato badan culus badan baa ku yimid waxaan leeyahay dalka maskaxda u maqan waa idinka maskaxda dalka u maqan idinka weeye idinka haddaa annaka naga daraataan haddii waa daawo hadday daawadii xanuunsato maxaa lagu daaweynayaa daawadii hadday cudurka ku dhaco maxaa iyada lagu daaweynayaa bal in laisku dayo in la helo hoggaan wacan oo macnaha hadday tahay dhinaca dhaqanka hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay dhinaca waxbarashada horumarka in loo helo arrintaasna ha la isku dayo deegaamadana ha la magaaleeyo oo magaaleyn baa socoto oo urbanization baa hadda aada u socdo xoog leh ha laga qayb qaato horumarkaas magaaleynta iyo socda hoggaan wacan oo macnaha dadka yeeshaanna waa lama huraan oo bal dadka isku soo duwa macnaha waa lama huraan oo hadduu mid siyaasadeed yahay iyo hadduu mid macnaha development iyo yahayna waa lama huraan dalkuna hadda wuxuu ku jiraa marxalad adag buu ku jiraa marxaladaas adag loogama bixi karo isbarbaryaac iyo macnaha nin waliba saan rabaan samaynaya loogama bixi kare waxaa looga bixi karaa dadku inay wada midoobaan oo wanaag ku midoobaan baa looga bixi karaa caqabaad waaweyn baan dalka kasoo gudbay haddana kuwa waxaad moodaa ka dhib badan inay dalka hadda kusoo fool leeyihiin oo aan filayo dadka dibadda jooga inay wax badan ka warqabaan kala socdaan marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka igu suura gashay inay halkan iga daawadaan waa idin salaamayaa dhammaantiin salaantaa kadib halkan soo jeedintan inuu soo jeedinayo qodobo kooban oo dhallinyarada la xiriira ayaan soo jeedinaya insha allah qodobka koowaad waxa weeye inaan cabiro waqtiga qofka dhallinyarada ee maanta halkan jooga uu ku sugan yahay waa waqti aada u dhib badan adeegyadii aasaasiga ahayd uusan iska bixin karin haysan markii adeegyada aasaasiga uu qof ku noolaanayo xaqiisa ah laga reebo qofkaa waxaa haysta dhammaan waxaa deegaankan hadda aan joogna laga helaa waad isleedihiin inta badani hadda waa ka fog yahay magaalooyinka waaweyn wixii dhammaan iskuullada xunxun ee magaalooyinka waaweyn ku yaala laga heli karay waxaa ka furan goobihii dadka daraagiska lagu bari jiray waxaa ka furan iskuulladii dadka burcadbadeednimada lagu bari jiray iyo burcadberiga intaba waxaa ka furan oo halkan hadda waxa weeye ilmuhu khatar u yahay in loo adeegsado dhammaan shaqaaqooyinka ka dhanta ah qofka bini aadamka markuu duruuftaa ku jiro oo adeegyadii asaasiga ahayd laayahay haddana uu waqti u haysta fiican inay ka faa'iidaystaan iskuullada noocaas oo kale ah ninkaa dhallinyarada ee halkaa jooga wuxuu maantay oo waqti 20 sana laga soo wareegay waqtiga burburku dhacay uu oga dhib badan yahay waqti kasta oo dadka ummadda soo maray waqtiyada mustaqbalka ayo hadda aan rajaynaynaa maadaama saamaynta aan ku leenahay mustaqbalka inaan wax ka bedelno rajada aan ka qabnaa waxa weeye inay ka sii liidanayso wadciga hadda jira haddaan la helin ummad u istaagta oo wax ka qabata ummadda marka halkan iga dhagaysanaysa waxaan rabaa inaan wax yar ka koobto markuu duruuftaa ku noolaa ninka dhallinyarada oo deegaankan ku nool wuxuu fursad u helay inuu ka faa'iidaysto 3 jihayn oo aad u xadidan jihayntaas waxaan ka wadaa waa 3 waxyaalood oo halkan uu ka helay oo fursado wanaagsan ah oo u suuragelin karay inuu wuxuun ku tilaabsado duruuftiisa nololeed inuu wax ka qabto tan koowaad waxa weeye shaqooyin xadidan oo uu ka hela dadka caa'ilada u ah oga shaqeeyo meelaha markaa laga heli karo shaqada ama ayagu ay shaqaalaysiiyaan taasu aad bay u xadidantahay waxay wax ka tari kadhaa qofka dhallinyarada waqti kooban wuxuu ku noolaan lahaa shayga labaad oo qofkani loo sameeyo fursadda iyo jihaynta waxay noqotay in wadankii laga saaro oo loo kaxeeyo dal dibadeed waxa ay ku sugan yihiin adinka nooga xogogaalsan midaas oo meesheedii jooga qodobka saddexaad waxa weeye dad kooban oo dadkii markaa waxgaradka wadanka uga harayba waxay isku xilqaameen qofka inay wax baraan oo ay baraan waxbarashadii aasaasiga ahayd ay baraan waxbarashadii sare intaba ay baraan
fursadahaas way xadidan yihiin jihaynta aad bay u xadidan yihiin waxaana ka faa'iidaysan kara tiro aad u yar oo ka mid a dadka dhallinyarada ah fursadaha laftigoodu ma haystaan wixii lagu wadi lahaa waana waxa keliya oo aan isleenahay maanta qofka dhallinyarada ah wuxuu helayaa dhammaan waxyaaluhu u baahan yahay buu ka helayaa wuxuu ka helayaa amnigu u baahnaa ee u suuragelinaya qofkan inuu dego oo maskaxdiisu degto oo si fiican u fakaro wuxuu ka helayaa awoodda u baahnaa inuu qaato oo qofku wuxuu helayaa xirfad uu magaaladii kusoo biiriyo maadaama inta badan dadkan ay badaawi ahaayeen oo qofku baadiye ka yimid magaalada xirfad lagu joogo qodobka labaad oo uu ka heli lahaa waxa weeye oo faa'iido badan u hagis inuu helo inuu qofkani garto waxa khaldan iyo waxa saxan oo inta badan waxyaalaha ay u nugul yihiin oo khalkhaldan oo maanta aad suuq fiican u haysta inay ka qayb qaataan qofkaas marka waxa weeye uu iska jiro arrinta aan raba hadda markaan inaan kula dardaarmo waxa weeye mas-uuliyadda qofkan maadaama intiina badan aad isku xilqaanteen inaad wixii uu cuni lahaa siisaan waxaa loo baahan yahay nidaam u suuragelinaya qofkani noloshiisii inay u dhammaystiranto oo adigana aan wax badan kugu darin inaad ku darto waa midda koowaade waxa weeye inaad xil iska saarto qofkani inuu wax barto waa midda labaade inaad goobaha waxbarashada aad ka shaqayso asagana waxbarashada ka bixinaya kuna ilaalinaya goobahaasna ka qayb qaadanaya horumarintooda waxaan halkaa idinkaga soo jeedinayaa xalka keliya oo aad maanta duruufta jidda aad oga qayb qaadan kardhaan kana muuqan kartaan waa dadka in lagu soo cesho deganaanshaha dadka in loo soo celiyo shakhsiyadoodii dadka in loo soo celiyo akhlaaqdii iyo xikamkii qofku uu ku noolaan lahaa dhammaan meesha uu ka helayo oo ninka dhallinyarada maanta awood siin karta waa goobta waxbarashada waa meeshaad wax ka bedeli kardhaan inaad waddanka ka kaxaysaan waxba kama bedeli karto dad badan oo aydan kaxayn karin baa meeshii ku haraya goobaha hadda jira ee ganacsiga oo hadda joogana waxay noqonayaan kuwa maalinba maalinta ka dambaysa kasii yaraanaya duruufta hadda adag oo waddanka jidha dadkii xoogaaga haystay waxay la aadeen meelaha ugu dhow East Africa halkaasna waxay oo la aadeen waxa weeye qofku dhaqaalihii kobacna waa u sameyn waayay waana ka dhumay amni daraana haysata shaqadu aad bay u yar tahay waxaan idinkula talinayaa dadkiina barnaamijkan dhagaysanaya oo aad u daneeya danaha dadka halkan ku nool dadkani maanta duruuf ka duwan duruuftii ahay survivalka bay ku jiraan duruuftaas waa maxay dadkani waxay u baahan yihiin garaadkooda in la kobciyo waxaa ka qayb qaadan kara waa waxbarashada inaad waxbarashada awoodda saartaan baan idin kugu talin lahaa oo taladaasaan inii soo jeedin lahaa waxaan kaloo sidoo kale tala ahaan inii soo jeedin lahaa adinka laftigiinu xagga markaad joogtaan idaydan ku mashquulin sidaad wax u cuni lahaydeen iyo sidaad lacag u soo diri lahaydeen aad ku mashquushaan inaad garaadkiina dhistaan xorriyaddu halkaasii ku jidhaa baan isleeyahay kan halkan joogana sidaasaad wax ugu tari kardhaa ugu yaraan haddaadan ka qayb qaadan waxbarashada halkan ka jidha qiimaheedaad ogaanaysaa haddaad xagga ku nooshahay oo isku daydid inaad wuxuun ka barato guryaha aad ku nooshihiin waxaa ka dambaysa waa garaad la kobciyey deegaanka aad ku shaqaysatid waxaa ka dambeeya waa garaad la kobciyey goobta aad ka shaqayso waxaa ka dambeeya oo socodsiinaya waa garaad la kobciyey ummadahaas aad arkaysaan waxay ku shaqaynayaan waad garan kardhaan ma jiraan wax la iska sameeyey haba noqday guriga xataa aad ku nooshahay waxa lagu sameeyey waxa weeye waa garaadkoo la kobciyey waa habka keliya oo aan isleeyahay qofka dhallinyarada waa lagu badbaadin karaa waana waqti maanta idiin baahan inaad si deg dega aad uga soo gaartaan oo aad goobahan ka qayb qaadataan jiritaankoodii kobcintoodii iyo in dadkii halkaa lagu xirayo lagu hanuuniyo laguna baro waqtiga hadda la joogo ummaddani waxyaalaha asaasiyaadka ay u baahan tahay oo ay ka mid tahay siday isku nabadgelin lahaayeen siduu qofku cayshkiisa u doonan lahaa siduu ilaahiisa ugu xirnaan lahaa siduu ummaddan uu la nool yahay si fiican ugu noolaan lahaa waxaan u malaynayaa afartaa qayboodoo hadda aan ka hadlay waa afarta qayboodoo qofka bini aadamka laga rabo inuu kobciyo inuu shakhsiyaddiisa kobciyo inuu calaaqo fiican bini aadamka la yeesho inuu qofka xirfad uu ku shaqaysto uu yeesho inuu ilaahay isku xiran yahay intaa waxaa kulansan kara waa goobta waxbarashada inay qofkaa barto aad baa u mahadsan tihiin waxaan rajayn doonaa barnaamijkaas inuu idinku dhiiran gelin doono adinkuna inaad ka faa'iidaysataan waqtiga inii haray oo aad u leexisaan nolosha inta idinkaga hadlay intellectual resources badan inaad tabacdaan dadka halkan joogana aad xalkooda qaybtaa ka dhigtaan timaadaan oo aad mas-uul ka noqotaan
waxa aad bixinaysaan meeshay ku baxayaan aad la socotaan qofka aad kobcinaysaan intuu korayo aad la socotaan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum